arrimaha Soomaaliya iyo xaaladda maanta marayso iyo cakarnaanta ka jirta muddadii laga soo bilaabo bishii 9aad ee 2018kii shirarkii joogtada ah ay u qabsoomi jireen dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka federaalka oo baaqday sidii arrimahaas waxa jira iyo aragtiyaha la kala qabana la isku soo dhaweyn lahaa aragti cadna laga qaadan lahaa runtii dawladaha aan la kulana ruuxadooda aad bay waxay walwal uga qabeen wada shaqayn la'aanta muuqata ee ka dhex jirta dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda federaalka taas oo mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha ku socdo waxaan si cad oo aan leexleex ahayn anaga ula wadaagaynay dawladaha lagu tilmaamo partnership oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiya in ay iyaguna ay arintaas si dhow la socdaan sidoo kale markii aan isla jeexjeexnay xaaladaha jira runtii waxa soo baxay concerno ama aragtiyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanay Puntland haddii aan soo koobno waxaan caawa shirkan ka hor ruuxadeeda kulan yeelanay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka socda aqalka sare ee Puntland u matala aqalka sare oo ugu horeeyay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole Juurale iyo rag fara badan oo kale oo la socday oo runtii labadaas oday oo ka soo jeeda khabiiradii xilligii ku meel gaarka laga baxay iyo dastuurkan sameyntiisa dood dheer iyo wada falanqeyn ayaa waxaan ka yeelanay xaaladda dalka iyo meesha uu marayo iyo Puntland iyo waxa la gudbo waxyaabaha dhabta ay soo baxay waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed Soomaaliya meesha isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo runtii khataraha u weyn ee Puntland dareemayso waxa kamid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyay la gacan bidixaynayo oo wadadii loo baahnaa uusan ku socon waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira oo caqabad aan hadhow la xalin karin yeesho dawladda Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay garowsan yihiin marxaladda hadda lagu jiro oo waxa afqalaad lagu yeero state building process waa hab raac ama hab socodka dalka dib loogu dhisayo waxaan garowsanahay inaan la gaarin meeshii ugu sareysay ee qaanuunadii loo baahnaa dalkan in lagu dhaqo maadaama dastuurka hadda uu jiro qabi qoraal sidoo kale dastuurku wuxuu leeyahay mabaadi' asaasi lagu heshiiyay oo ugu horeyso dalku inuu nidaam federaal qaato oo maaragtay lagu xukumo waxa halka ka soo baxaysa dalka habka hadda lagu wado inuusan ahayn habkii lagu heshiiyay ama habka dastuurka ku meel gaarka hadda aan wadano inuu caqabad ku yahay waxa kale oo soo baxday dhaliil dadka nala wadaaga ama partnerka dawladaha walaalaha iyo saaxiibada aan iyagana faham daro inay ka jirto habkii ay noola shaqayn lahaayeen 2012kii iyo xilligii ka horeysay ilaa 2004 waxa nidaamka dalkan sababay in dawlad federaal dhalato in magaala madaxda la tago in dawlado xubnaha ka ay dhismaan in dalka dastuurku meel gaar loo sameeyo in waxyaabahaas waxa sababayay nidaam la oran jiray bottom up approach oo in hoos laga soo dhiso oo state walba gaarkiisa baahiyiisa loo soo xaliyo dawladnimadiisa loo dhiso dawladda dhexena ay sidaa ku dhisantay ayay ahayd waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway taasna ay keentay dawladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul dareysatay in amnigii magaalada Muqdisho ma xataa Maka Mukarrama culays badan ka haysan oo aan ognahay culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu ilowsiyay meelihii kale waxa ka jira taas marka waxa dhacday dawladdii inay u muuqato dawlad aanan war u haynin ama aan la jaan qaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira kala qaybsanaantaas iyo kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado waxyaabaha sababay oo aan aragnay inuu khaladka saldhig u yahay waxa kamid ah nidaamkii wada shaqaynta ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ay ku wada shaqaynayeen wuxuu ahaa shir dhowrkii bilood bar qabsoomi jiray oo lagu magacaabi jiray golaha amniga qaranka cilada ugu weyn oo ka soo baxday waxa kamid ah dalka Soomaaliya oon lahayn nidaam
wada shaqayn amni ah oo matalan Puntland dhibaatada amni ay haysato aysan war u hayn midda galmudug haysato galmudug midda haysato ay midda Hirshabeelle haysato ay war u hayn dawladda dhexe midda haysata ee maalin walba kiiloomitir afar iyo maxaa la yiraahdaa Maka Mukarrama ka haysata annagu aan war u hayn waxna aan ka qaban karin haddana meeshii la rabay in dalka lagu hogaamiyo uu noqday golo lagu magacaabo golaha amniga qaranka oo runtii aan si dhaba u matali karin baahida dadka Soomaaliyeed marxaladda soo socota ay filayaan baahida marxaladda soo socota ay filayaan waxa la isku waafaqsan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dastuurka iyo kulliba in ay tahay waxyaabo hortabin leh oo mararka qaarkood xataa 2012 markii dastuurkan ku meel gaarka la qorayay lagu dagray isagoo lifaaq ah waxa ugu horeysa in dastuurka la dhameystiro dastuurka si loo dhameystiro waxa loogu talagalay in la sameeyo guddi ka kooban 5 qof oo dawladdu soo magacaabayso iyo xubno dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka qof soo magacaabay ilaa maanta lagu jiro 2019 ah 2012 shaqadii la iska rabay lama qaban waxaana si cad dawladda dhexe la isaga hor istaagay in xubnahaas ay ka mid noqdaan idan shaqada badan ee mararka qaarkood la leeyahay dastuurka ayaa dib u eegid lagu sameeynaya waxay u noqonaysaa wada khaldan oo aan sharci ahayn maadaama dadkii korjoogtooyinta u ahaan lahaa oo ka tirsanaa ay matali lahaa dawladaha xubnaha ka ay meesha ka maqan yihiin si cadna loo diiday waxaa sidoo kaleeto meesha ka maqnaaday habkii muddadaas kala guurka ah dalka lagu dhaqi lahaa habkii loo qaybsan lahaa awoodaha habkii loo qaybsan lahaa khayraadka habkii loo qaadan lahaa nidaamka cadaaladda ee dalka habkii doorashooyinada dhici doona loo geli lahaa sida ay u shaqeynayaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha sida wada shaqayntu u noqonayso ayaa dhan ay halis gashay waxaa soo baxay in dawladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yiraahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn maalinta marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii la yeesho la wado waxaa kaloo soo baxay waxyaabo la yiraahdo tubaha oo sectors ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto deeqahaas markay yimaadaan meel ay ku baxaan la garan lahayahay shararka isla xisaabtankana ay ka soo baxaan ribooro bilaayin dollar oo Soomaaliya loogu deeqo dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaan aysan jirin arrintaas waxay shaki gelisay dadka Soomaaliyeed annaguna haddaan nahay maamulka Puntland waxaan wakiil ka nahay dadka reer Puntland waxaa khasab nagu ah wixii aan aragnay inaan la wadaagno si ay iyagu ruuxadooda ay mowqifka ku habboon u qaataan runtii Puntland muddadii hadda ay jirtay waxa ay dood badan ka qabtaa nidaamka dakhliga ama hawlaha soo gala deeqaha dalka soo gala loo qaybiyo oo runtii ay doon weyn ku qabto waxaa dhaca hab aysan raalli ka ahayn shaqadeeda oo maalinta ugu dambaysa mararka qaarkood la yiraahdo shirka soo qaybgala la qaybsaday la qoondeeyay go'aanada ka soo baxayna la sii qoray intaan shirka la tagin taasoo runtii caqabad ku noqotay dalkii inuu wada socdo waxaa ka mid ah awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo waxwad qaybsiga awoodaha habka dalku maanta u dhisan yahay ama hal dawladaha xubnaha ka ha noqoto ama hab beeleedba ha noqotay maadaama weli 4.5 aan laga gudbin waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyay guddoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka wax qaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego habboon lagu sameeyay waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr bilood socday sidii guddoomiyaha bangiga loo xul lahaa oo wax qayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen waxaa hareer socotay mar la bedelaya guddoomiyaha maxkamadda sare looma marin process nin baa laga qaaday nin isla haybtii ah baa lagu bedelay Puntlandna waxba kama qaban laakiin guddoomiyaha bangiga dhexe marka la soo gaaray waxa la tartan furan ah loo galo markii ugu horeysay waxa laga leexiyay wadadii saddexaad oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan iyo ku soo yimaadaan oo qofka ku habboon uu noqdo waxba kama qabno waxa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa ogeedeen ololaha la galay markii taa laga soo gudbay oo la furay oo dadkii reer Puntland ay iyagoo waxba ka qabin xataa tartankii galeen tartankii markuu soo dhawaaday oo dadkii short listiga ah reer Puntland noqdeen
ayaa waxaa la qaatay nin qoladii fitinka sameynayso dadka kale xulaysa ka mid ah oo aanan ahayn reer puntland iyadana runtii waxay tahay nidaamka habqaybsiga in lagu xadgudbayo waxay ka dhigan tahay in puntland aan waxba laga weydiinayn awoodaha sare ee dalku leeyahay sidaasna dalku kuma sii socon karo saxna maaha runtii concernadaas aan qabnay marar badan oo horeeto dusha umaan sheegi jirin waxaan ku dadaalnay inaan la wadaagno dadka walaalaha soomaaliyeed iyo dadka dowladaha deeqbixiyaasha ee soomaaliya inay hagaagto jecel doodaas wax badan ayaan la wadaagnay nasiib wanaag ugu dambeyntii waxaan isla garanay wax kasta oo khaldan in la saxo puntlandna waxay diyaar u tahay haddii wax khaldaman inay wax saxdo wixii khaldama inay hore uga socoto laakiin waxa aan rabnaa in la xisaabtamo wixii khaldamay haddii la sixi kara la saxo haddii la sixi waayana khaladkaas uu dib damba u dhicin si taa u dhacdo waxaan runtii dood dheer oo ay yeesheen xubnaha dowladda dhexe xubnaha ka ah iyo wada tashi lala sameeyey madaxda sare ee dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa la isla gartay maadaama tabashooyin puntland siday u qabto si lamida galmudug ay u qabto sida lamida inay hirshabelle u qabto si lamida koonfur galbeed u qabto si lamida ee jubbaland u qabto haba kala duwanaadeen duruufaha iyo xaaladaha ay ku kala nool yihiin si taas xal loogu helo oo qof walba tabashadeeda la helo waxaan soo jeedinay guud ahaan dadkii meeshaas jooga la islana gartay in la yeesho shir wada tashi ah shirkaas wada tashigaana uu ka dhaco magaalada Garowe oo shirkii xilliga calaamasaarka aan ku ballan baaqnay wuxuu ahaa shir dib u heshiisiina oo stakeholderska ama dadka daneeya Soomaaliya oo dhanka qaybaheeda ka soo qayb galaan maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala aragti duwan yahay waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishaan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta ku filan oo aan badnayn oo runtii aan rajaynayn inuu Ramadaanka ka hor u dhamaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe puntland galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo jubbaland sidoo kalena ay ka soo qayb galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre shirkaas markii la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe wada shaqeynayaan sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka sidoo kalena waxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan cidda processkaas la rabo in Soomaaliya marxaladda ay ku jirto hore looga sii qaado ka qayb gali lahayd awoodaha ay yeelan doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas ka soo baxo qodobada la rabo in hortabinta leh marxaladdan 2020 inta ka horeysa laga rabo in ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay ka wada shaqeeyaan oo annagu aan u aragno in si dhaba looga wada hadlo dib u eegidda dastuurka iyo sida iyo wadada uu ku socdo oo ah wada khaldan sidoo kale muddada dalku uu gaarayo sharciyad dhameystiran iyo doorasho qof iyo cod ah iyo madax haysata sharciyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah in la ilaaliyo habka wax qaybsiga ku salaysan isfahamka power sharing ah sidoo kale in laga wada hadlo habka qaybsiga khayraadka dalku leeyahay iyo deeqaha dalka la siiyo iyo wadooyinka loo marayo waxa kale oo iyadana muhiim ah in laga wada hadlo habka nidaamka dalku uu yeelanayo nidaamkiisa garsoorka si dalku uusan u galin buuq waxaad ogtihiin waxa aan ka hadlayo dhan waxba ka bilbaabin laakiin waxa lagu sameeyay wada leexin waxyaabaha kale oo iyagana aan rajaynayn inay hortabintu yeelato oo meesha saaran waxa weeye waxa cad oo Soomaalidu isla waafaqsan tahay in madaxweyne kasta ama dawlad kasta marka ay dhameysato muddo xileedkeeda in uu yimaado hab wax loo isbedel ama doorasho ku dhacayso doorashadaas laba mid ahayn midii 2004 dhacday tii laba mid ahayn Djibouti ka dhacday 2009kii taasi laba mid ahayn tii 2012kii ka dhacday Xamar taasi laba mid ahayn midii ka dhacday meesha la yiraahdo Muqdisho 2017kii tan soo socota ruuxadeeda in laga wada hadlo sidee u ekaanaysa oo muddo kooban oo 2 sano ka yar ay hartay iyadana waxay u baahan tahay habkii
looga hadli lahaa iyo ciddii ka hadli lahayd oo awooddaa lahayn lahayd in la xulo runtii waan rajaynaynaa inay halkaa ka soo baxdo golo siyaasadeed oo siyaasadda dalka lagu lafaguro waxaa la isla qirtay baahida u weyn ee ka dhaxaysa madaxda Soomaaliyeed inay tahay ka shaqaynta arrimaha siyaasadda haddii siyaasadda aysan ka shaqayn oo siyaasadda wax la isaga garan way adkaanaysaa in loo gudbo dhinaca sharciga iyo dastuurka wax ka qabaysa waxyaabaha loo yiraahdo dastuurku waa qabyo waa waxyaabaha weli isfaham la'aanta siyaasadeed ka jiraan markii siyaasiyiin loo heshiiyo waxaa sahlanaanaysa in dastuurka la dhammaystiro dhinaca sharciga markaas waxa loo gudbi karaa in la amal geliyo ama la dhaqan geliyo wixii dadka ku heshiiyo oo implementationka loo yaqaan waa rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shir miro dhal ah waa shir Soomaalidu dhan ay sugayso waa shir caalamku uu sugayo annaguna haddaan nahay reer Puntland waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta ugu fiican oo ugu wanaagsan oo hormuudka aan ka qaadano waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Soomaaliya danteeda ku jirto waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali darteed u tanaasulno waa haddii la isla ogol yahay oo la ogaado sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan doodeenna si sharciyeysan oo furan aan u soo gudbino sidoo kalena waxaan rajaynayaa walaalaha dawladaha kale xubnaha ka imaanaya iyagana inay sidaas kala noqdaan